qofku markuu inuu wax cuno rabo ama inuu wax cabo markuu doonayo nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadan wuxuu baray adab ay la yimaadaan ayuu rasuulku baray oo maxay tahay inuu qofku yiraahdo bismillaah markaad wax cabayso ama wax cunayso u fiirso bismillaahir rahmaanir rahiim oran maysid bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad nadihi maysid bismillaah kaliyad oranaysa sababtu maxay tahay rasuulka inta sheegay sallallahu alayhi wasallam inagu wada salaad maghrib baynu tukanay haddaynu xabad afaraad ku darsanno war saddex weeyaane kullay soo galay masaajidka ma iska buuxino halka dhiman afarta maynu buuxino haddaynu hadda nidhaahno rakacadu waa salaad soo maaha laakiin haddaynu samayno afartaasi xabadda afaraad maxay cunaysaa saddexdii bay laqaysaa day cunaysaa soo maaha waayo da nabigii ma sharciyeen sallallahu wasallam alayhi hadda wuxuu waana salaad ogow waa salaad haddana cid kale u tukan maysa ilaahay baad u tukan haddana masaajid baad ku tukan haddana waad weyse qabtaa saddexdaadi kale cunaysaa waayo de ma jirto waa baaba eber lagu diray eber baa soo baxaysa sida awgeed ba waxa weeyaan rasuulka sallallahu wasallam alayhi markuu ina bariyay wuxuu yiri markaad wax cunaysaan bismillaah dhaha markaad wax cabaysaan bismillaah dhaha waxa nabigu ka waramay sallallahu wasallam alayhi qofka aan sida oran cunada iyo cabida waxa la wadaagaya shaytaan sida awgeed ba bulshada qaarkeed qofna shaytaanku waa ku naaxaya gidaarkaas u leekaanaya waayo de wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo iyo reerka iyo wuxuu dhanba bisinka loo qaban maaye uu kula qurqurinaya Soomaa qofna bisinkaas u qabanayaayo shaytaanku balada weynan arkayne dadka bisinka u qabta weyd buu ku noqdaagtiis waa ku agbaqti illa wani halka ku soo fadhiyo halka aadan xuu marinay waxa cuntay wax kale horta sax ku waana kula socda kaana hari maayo afka wallaana kugu saareen baatiri waxaad cuntay waxaad cabto waayo de wax kasto Itaaliya xooga u kordha cida uu lugooyada ku hayo waayo adiga ma kugu lugoynaya Soomaahad marka qofna shaytaanku waa ku agnaaxa qofna waa ku agbaqtiya marka bisinkaad u qabanaysa cuntada iyo cabitaanka waxa u dalil xadiidka imaam muslim rasuulku sallallahu alayhi wasallam inna ash-shaytaana yastahillu at-ta'ama shaytaanku wuu banaysta oo wuu xalaashada cuntada qofku marka aanu bisinka u qaban buu rasuulku sallallahu wasallam alayhi adaabta labaad rasuulku wuxuu dadka baray oo adaab ah sallallahu wasallam alayhi inay ummadu ilaahay u mahad celiso marka ay cunadii iyo cabiday cunayeen ka faaruqaan ha iska kicin markiiba alxamdulillaah marka ka baxdid oo rasuulku faa'iidada ku jirta maxay tahay rasuulku sallallahu wasallam alayhi hadithka fi sahih muslim wuxuu leeyahay inna allaha la yarda عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها إلهي وكرها للنقضة أدون كيسة أدون كاسي رقية دمر قفكو دونه هالنقضة صغير يا كبير هالنقضة علماء عامه هرمي هرمقال من نوع دونه هالنقضة أدون كمسلم كإلهي رالب وكالنقونية هدي انتو وحعونه مركو عنتدي عني كذب الحمد لله ويرهده ويشرب الشربة فيحمده عليها انتو وحعبنا عبتان ويرهده الحمد لله إلهي بارك لك النقونية من النبي صلى الله عليه وسلم